رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat اlanwaar ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaanu ka soo baxay, waxaanu gelaynaa alfatxu alacdam, fatxu makka almukarama. fatxigii weynaa ayaanu qaadanaynaa. alfatxu alacdamu, fatxigii weynaa waa fatxu makka almukarama, makadii la karaameeyey furashadeedii. assababu ticdaad diyaargarowga iyo walikhfaa qarinta. sababtii keentay habkii loo diyaargaroobay iyo sidii markaa loo qariyey duulaanka. wa fii ramadaan sanadii 8aad oo min alhijra fataxa allaahu, ilaahay wuxuu u furay tacaalaa amarkiisa sarreeye lirasuulihi, rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam, makka almukarama, maka almukarama ayuu markaa u furay. wahuwa kaana alfatxu alacdam, waa fatxigii weynaa. fatxigii weynaa waaye. acaza allaahu, ilaahay baa ku cizeeyey bihi fatxiga diinahu, diinkiisa, wa rasuulahu, rasuulkiisana wuu ku cizeeyey. wa anqada wuxuu kaga baytahu, gurigiisii, wa baladahu, beledkiisiiba. wastabshara bihi, waxaa ku bishaaraystay fatxiga iyo guusha ahlu samaa'i, samada ehelkeeda. samada ehelkeedana way bishaaraysteen. wadakhala bihi, waxay ku soo galeen fatxiga annaasu, dadkii, fii diini illaahi, ilaahay diinkiisa, afwaajan ayagoo jamaaco ah. wasababahu, sababkii keenay fatxiga wuxuu ahaa anna banii bakar ayaa dakhaluu, waxay la galeen maca qurayshin, quraysh micigeeda, fii cahdi alxudaybiy. oo horey waxaan u soo tilmaannay heshiiskii muslimiinta iyo quraysh ay galayeen. cid allaala ciddii doonta inay dhanka quraysh la soo safatay heshiiska kala qayb gasho in loo ogol yahay, dhanka mid doonto inay la soo safan karto. reer bani bakar iyo reer qusaaca marka kala saftay, reer bani bakar waxay la safteen oo ay mici la noqdeen ee quraysh cahdigii xudayba. wa kaanat, waxaa ahaa baynahum, ayaga baynkooda, waa reer bani bakre iyo wa bani khusaaca, reer bani khusaaca, dimaa'un dhiigag iyo wa thaaraatun aarar layska aargudahayo iyo dad layska dildilay ayaa ka dhaxeeyey fi ljaahiliya, wakhtigii jaahiliga. ikhtafat, waxaa qarsoonaaday naaruhaa, naarteedii iyo dabkeeda, biduhuuri alislaami, duhuurka islaamka uu soo baxay xilligii jaahiliga yaa dagaalkaa ka dhaxayn jiray. laakiin markuu islaamku soo daahiray, dabkii u qarsoomay. falammaa markii waqacad ay dhacday hudnatu alxudaybiya, ballantii xudaybiya, iqhtanamahaa, way ka faa'iidaysteen banuu bakr. wa agaaruu, way weerareen, nimankii reer qusaacay weerareen, fii shahri shacbaan, bishii shacbaan ayay markaa weerareen, sanadii 8aad ee hijrada, calaa qusaaca dushooday weerareen, ee leylan habeennimo. wahum ayagoo reer qusaacana calaa maa'in, biyo korkii ay yihiin, meel ceel ah ayay joogeen oo yuqaalu lahu la yidhaahdo alwatiir.
meel biyo ah oo watiir la yidhaahdo ayay markaa ahaayeen. faqataluu waxay ka dileen minhum xaggooda, faqataluu reer bani bakar way dileen minhum reer qusaaca xaggooda maa yarbow waxan qofood wax ka badan bay ka dileen. wa taaraduuhum way bursadeen ama way ceersadeen ilaa makka, ilaa makay bursanayeen, xataa qaataluuhum ilaa ay kula dagaalameen fiiha maka gudaheeda. oo waxay islahayeen cararoo xaramka gagala si laydiin dhaafo. xaramkii dhexdiisa markaa lagula dagaalamay. wa acaanathum waxaa soo kaalmaysay qurayshun quraysh. reer bani bakar meeshii ayagu ay quraysh la safnaayeen oo la rabay inay dagaalka ka celiyaan way soo gacan siiyeen siran, si sir ah ayay ku soo kaalmeeyeen birijaalin rag iyo wasilaaxin hub. si qarsoodi bay hub iyo rag u siiyeen. wa kaanat khusaacatu, khusaacana waxay ahayd qad daqalad mid gashay maca almuslimiin, muslimiinta micigooda fii cahdi lxaleen. wa kaana qad aslama, waxaa ahaa kuwa islaamay cadadun tiro oo minaya ka mid ah. inkastoy gaalo ahaayeen haddana tiro ayay ka mida islaamay. fa ablaquu way gaarsiiyeen rasuula allahi, rasuulkii allay gaarsiiyeen alkhabara, khabarkii. faqaala rasuulkuna wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye la amnacannakum waan idin difaaci oo waxaan idinka difaacayaa mima amnacu nafsii, waxaan nafsadeyda minhu xaggiisaan ka difaacayo. wixii naftayda aan ka difaacayaan idinkana idinka difaacayaa buu nebigu yidhi. wa axasad way dareentay qurayshun quraysh bisuu'i ficlatihaa, wixii ay sameeyeen xumaantiisa ay markaa dareemeen. wa khaafad waxay ka cabsatay quraysh nataa'ijuhaa, natiijada ka dhalan doonta, ka baxeen natiijada ka dhalan doontana way ka cabsadeen. fa asracat way degdegeen biirsaali abi sufyaan, abi sufyaan diritaankiisa loo diro ila almadiinati, magaalada madiina, liyashudda suu u soo adkeeyo alcahda ballantii, wayasiida uuna soo kordhiyo fi lmuddati ballantii, inuu muddada iyo wakhtigana soo siyaadiyo, heshiiskana dib loo cusboonaysiiyo. saasay abuu sufyaan u soo direen. falammaa markii jaa'a uu yimid abuu sufyaan almadiinata, magaalada madiina, nasala wuxuu ku soo degay calaa ibnatihi, gabadhiisa ummi almu'miniin ahayd ummu xabiiba radia allaahu canha, oo rasuulkuna uu markaa qabay. gabadhaas ayuu markaa ku soo degay gurigeeda oo gabadhiisana ahayd, rasuulkana xaaskiisa ku soo degay. wa araada wuxuu doonay an yajlisa inuu ku fadhiisto calaa firaashi rasuulillaahi, rasuulka ilaahay firaashkiisa, firaashka nebiga inuu ku fadhiisto ayuu markaa doonay. fatawathu canhu, way ka duubtay, intay saa gof uga siisay firaashkii nebiga duubtay. faqaala wuxuu yidhi aabbaheed abuu sufyaane, yaa bunayatii, gabadhaydiiye, aragibti bii, ma anaad ila nacday buu yidhi, can haada alfiraash, firaashkaanee kan ah, firaashkan ma anaad ila nacdayoo ma waxaad isleedahay aabbaha yuusan ku fadhiisanin firaashkan ee mid fiican u dhig, amase ragibti bihi cannii, firaashka labadaa mid waa inaad istiri ka qaad firaashkan yuu ku fadhiisan aabbaha oo mid fiican u dhig, iyo minaad aniga firaashkan ii nacayso inaan ku fadhiistaad diidayso waa tee. qaalad waxay tiri huwa firaashu rasuulillaahi, waa rasuulkii ilaahay gogoshiisa. wa anta mushrik nijs, mushrik nijaasaa tahay bay tiri. waa aabbaheed diintaa kala geynaysa, diintaa xaaladaa ku tilmaamaysaa waxaa tahay adigana nin mushrik ah oo haddana najasun, nijaaso ah. qaala wuxuu yidhi wallaahi laqad asaabaki bacdii shar, wallaahi gadaashay shar baa ku asiibtay buu yidhi, shar baa kugu dhacday ani gadaashay. humma intaa kadib jaa'a waa yimid rasuuluullaahi, rasuulkii alleh, fakallamahu
waa uu la hadlay falam yarudda shay-an waxna uma jawaabin ku u bandhigay ee uu u sheegay nebiguu ka aamusay fadahaba wuu aaday ilaa abi bakr liyukallima suu kala hadlo rasuula allahi sala allahu calayh wasalam abuu bakar oo nebigii baan la hadlay waase ila hadli la'yahay soo baxoo igala hadal buu yidhi faqaala abuu bakar wuxuu dhahay maa ana bifaacilin aniga mid samayn kara ma ihi xaaladdaa ma samaynayo fa ataa cumar buu u tegay haddana faabaa cumar wuu ka diiday washaddada fi lkalaam cumar maa jiljilaac laga helayaa hadalkuubuu ku kakameeyeyba hadal adag buu markaa ku yidhi fa ataa caliyan cali buu haddana u tegey faactadara cali wuu ka cudurdaartay asagana faactadara wuu cudurdaartay wa ashaara calayhi wuxuu u ishaaray laakiin an yujiira inuu kala badbaadiyo bayna annaasi dadka baynkooda soo saa ma dhicin arrinta ani ma u tegi kara nebiga laakiin intaad dul istaagta nebiga iyo inta ag joogta hal mar qayli waxaad dhahdaa dadka hala kala nabadgeliyo an yujiira bayna annaas oo yarjacun iska laabto fa facala wuu sameeyey saasuu markaa sameeyey ninkii abaa sufyaan ahaa amaa rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam fatajahaza waa diyaargaroobay lilghaswi duulaan ayuu u diyaargaroobay wa amara wuxuu amray asxaabahu asxaabtiisa bidaalika arrintaa ayuu asxaabtiisu amray macnaha inay diyaargaroobaan wastanfara lilacraabi nimankii reer baadiyaalka ahaana inay soo baxaan buu ka dalbaday nebiga soo baxa buu yidhi alladiina reer baadiyaalkaasoo xawla almadiinati magaalada madiina geeda deganaa wa katama alkhabara khabarkiina rasuulku wuu qariyey oo ma uusan sheegin meeshuu u socdo wadaca allaaha ilaahay ayuu tuugay oo wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow khud qabo cuyuunta iga qabo indhaha macnaha waa jawaasiista waalakhbaara akhbaartana ka qaba can qurayshin quraysh xaggeeda ilaahayow indhahu ee kuwa jawaasiista u ah iyo akhbaarteennaba quraysh xaggeeda ka qari xataa nabaqatahaa ilaa aan kadino oo aan qabsano bilaadihaa beledkeeda wa siyaadatan siyaado iyo korsiimo oo filkitmaani qarinta darteed ah ayuu arsala diray nebiga abaa qadaaduu diray radia allaahu canhu fii awaa'ili ramadaan bilowgeediina ilaa badni idam midhahwaadii calooshii fogaasho ahaan 36 mayl magaalada madiina u jirta ninkaasuu markaa diray liyadunna si uu u maleeyo addaanu midka wax malaynahaya annahu rasuulku yuriidu inuu doonayo haadihi naaxiyada inuu aado dhinacaa uu ninka idam uu u baxay sahankiisa ah inuu nebigu u socdo say markaa dadka ugu moodaan wa kataba wuu qoray xaatib bin abi baltacata ninka lagu magacaabo kitaaban warqad ayuu qoray ilaa quraysh warqaddaasoo quraysh u socota ayuu qoray yukhbiruhum uu ugu sheegayo fiihi warqaddaa dhexdeeda bimasiiri rasuulillaahi rasuulka soo socodkiisa ilayhim xaggooda uu u soo dhaqaaqay naag calaa juclin mushqaydna waa ku siiyey jucli inay ugu qaado ajirna wuu ku siiyey warqaddan qaad buu yidhi fa ataa rasuula allahi rasuulka alla waxaa u yimid alkhabaru khabarkiibaa min asamaa'i xagga sare uga yimid fa arsala wuu diray rasuulka caliyan cali iyo walmiqdaad iyo wazubayr wamarhadan alghanawiyi ninka lagu magacaabo rasuulku cali iyo miqdaad iyo zubayr iyo marhad 4 nin buu diray wa qaala wuxuu yidhi inطaliquu baxa ilaa rawdata khaakh meel layidhaahda aada fa ina bihaa waxaa ku sugan daciinatan naag macahaa kitaabun kitaab wadata daciinadu waa gabadha meesha markaa lagu riday hawdajkeeda markay ku jirto waa gabadh safarley ah warqad bay wadaa ee fakhuduuhu minhaa ka soo qaada fa atowhaa waata udsadeen minhaa gabadhii xaggeeda alkitaaba warqaddii naa kitaabkaad wadakeen bay dhaheen faqaalad waxay tidhi maa maciya kitaab warqadda ma wadaba ani maa maci
micigayga kitaab iyo warqad maba ahaaninba. faqaaluu waxay dhaheen latukhrijanna waad soo bixin oo waad soo bixinaysaa alkitaaba warqadda, aw amase lanujaradannaka waan ku dhardhigaynaa. inaan dharka kaa dhigna maxay too jirkaaga fatashno, iyo inaad warqadda soo saarto adoo nabadgals u soo bixiso. saasay markaa ku yidhaahdeen markay ogaatay xaqiiq inay ku socdaan raggan. fa akhrajathu waxay ka soo bixisay warqaddii fa akhrajathu waxay ka soo bixisay min ciqaasihaa, waxay ka soo bixisay dabinkeedii. markii ay dabtay iyo warqaddii hoos markaa gelisay meeshii bay ka soo saartay. fa atow bihi way ula yimaadeen warqaddii rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam. faqaala wuxuu yidhi nebiga, maa haadaa yaa xaatib, xaatiba waxaan maxay yihiin? ilan warqaddii baa la akhriyay, xaatibaaba qoray. xaatiba waxaan maxaa waaye? faactadara wuu cudur daartay bianna lahu inuu kulikay u joogaan ahlan ehel iyo wa cashiiratan qaraabo, wa waladan iyo ilmo, walaysad lahu aysanna ugu sugnayn fiihim dhexdooda, waa reer makee, qaraabatun qaraabo yaxmu ugu ilaalisaa liajlihaa qaraabanimo darteed. taasuu markaa ku cudur daartay. fa araada wuxuu doonay an yattakhida inuu ka samaysto cindahum reer maka agtooda yaddan gacan yaxmuuna bihaa ilaalisaa ahlahu ehelkiisa, wax uun inuu gacan ku yeelo. maalin buu warqad noo soo qoray oo kale, ilmihiisa ha loo ilaaliyo. intaa ayaan markaa ugu talagalay buu yidhi. walam yafcalhu mana u samaynin irtidaadan ridoobid iyo ka noqosho canilislaami, islaamkuu ka ridoobay, walaa ridan iyo raadi ahaasha bilkufri, kufriga uu ku qanacsan yahay uma samaynin. faqaala cumar baa yidhi, dacnii idhaaf yaa rasuula allah, rasuulkii ilaahayow, adribu aan dhuftee cunuqahu qoortiisa. rasuulkii allow iga leexe kan qoorta aan ka gooye munaafiq waaye. fa innahu asagu qad khaana allaha, alluu khiyaanay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa, waqad naafaqa waana munaafiqoobay. faqaala rasuulku wuxuu dhahay salla badran, cumaroo ninkan badr buu ka qayb galay. innahu asagu waa xaatibe, qad shahida wuxuu ka qayb galay uu goobjoogka. wamaa yudriika maxaa ku ogeysiye cumarow, lacalla allaaha ilaah waxaa la arkaa iطalaca inuu taalacday calaa ahli badrin reer beder, oo faqaala uu yidhi icmaluu sameeya maa shi'tum waxaad doontaan, faqad gafartu lakum waa laydin dhaafay, dembigiina waa la dhaafay. markuu rasuulku sidaa yidhi, fadarafad waxaa qubtay oo biyo soo daadiyey caynaa cumar sayndhood. wallaahu wa rasuuluhu aclam, ilaahay iyo rasuulkiisa cilmi badan oo og buu maka lagu tegay waayo. walicashrin 10 oo min ramadaan marka la joogo sannadii 8aad ee hijrada, haadara wuu ka soo baxay rasuulullaahi rasuulka alla almadiinata, magaalada madiinuu ka soo dhaqaayay asagoo u soo jihaystay ilaa makka. waa 10,000 10,000 oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah. wastacmala wuxuu ku soo dhaafay uu u soo dhiibay cala almadiinati magaalada madiina abaa ruhmin alghafaariyu, ama waa abidar alghafaari. walamaa markii balaqa uu soo gaaray juxfa meesha lagu magacaabo, laqiyahu waxaa kula kulmay meesha rasuulka cammuhu alcabbaas, adeerkiisii cabbaas, maca ahlihi oo ehelkiisii ay la socdaan, waa ilmihiisii, muhaajirna ahoo madiina u sii socdaa. wa bilabawaa'i markuu yimidna laqiyahu waxaa kula kulmay meesha nebiga ibnu cammihi ina adeerkii abuu sufyaan bin alxaarif, ma abuu sufyaan ibni xarb oo dagaalka hogaamin jiray. ninkani waa abuu sufyaan bin xaarif eeda cabdullaahi ibnu abi umaya ninka lagu magacaabo. rasuulku markuu juxfo soo gaarayna adeerkii cabbaasaa la kulmay iyo ilmihiisa. cabbaas hore u soo celiyey, ilmihiina madiina u diray nebiga, soo bax buu dha annagana raac. abuwaameeshaldha markuu yimidna wuxuu la kulmay 2 wiilo, abuu sufyaan ibnu xaarif oo ilmo adeeray ahaayeen, iyo eedadiis wiil ay dhasho
cabdullaahi ibn abi umaya lagu magacaabo fa acrada canhumaa labaduu ka jeestay nebiga fa acrada wuu ka sii jeestay canhumaa xaggooda liannahu maxaa yeelay kaana rasuulku wuxuu ahaa yalqaa mid kala kulma minhumaa labadaa xaggooda shiddat aladri waalhajwa iyo caay aad bay rasuulku wacan jireen faqaalat lahu umu salama tala siisay nebigu waxay tidhi laa yakun yuusan ah ibnu cammika ina adeerka wa ibnu cammatika ina eedada ashqa annaasi dadka kuwa ugu ayaan daran bika adi xaggaaga kollay dadka waxbay kaa helaan nasiib iyo khayr bay kaa helaane ina adeerka iyo ina eedada yay kaa nasiib weynin oo yaysan noqonin ashqa annaasi dadka kuwa ugu ayaan daran bika adi xaggaaga waqaala rasuulku wuxuu ku yidhi liabi sufyaan i'tihi min qibli wajhi waqaala caliy cali bn abi aalib cali bn abi aalib baa tala siiyey liabi sufyaan baa wuxuu ku yidhi i'tihi uga imow nebiga min qibali wajhihi hortiisa war ha quusanin hadduu nebigu kaa jeestay meeshuu u jeesto uun istaag buu yidhi waqul lahu waxaad ku dhahdaa maa qaala wixii ay dhaheen mu ahaa tallaahi laqad aafaraka allaahu calayna wain kunnaa la khaati'iin tallaahi ilaahay waan ku dhaartay laqad aafaraka allah ilaahay wuu ku doortay calaynaa korkeena wain kunnaa annaguna waxaan ahaanay la khaati'iina waa markaa gafay fafacala wuu sameeyey faqaala rasuulkuna wuxuu yidhi laa tatriiba calaykum alyowm maanta wax canaan ah ama ceebayn ah korkiina ma ahaanin alyowm yakfir allaahu lakum allah idiin dembi dhaafo wahuwa ilaahayna arxamu araaximiina inta naxariisata midka ugu naxariis badan waaye faanshadahu wuu tiriyey marka abu sufyaan abayaatan baydad ayuu tiriyey gabay ah madaxahu fiiha uu ku ammaanaya nebiga baydadka kor dhexdooda wacta uu kaga cudur daaranayo camali saabiqan horay wixii horay ee dhib uhuu nebigu ku sameeyeyna uu kaga cudur daaranayo walammaa markii balaqa uu gaaray nebiga kadiidan meesha lagu magacaabo wara'aa wuxuu arkay anna sawma soonkii uu soonnaa ilaan ramadaan waa lagu jiray waana la soonnaa shaqa cala annaasi dadka inay ku dhibtoodeen afqara wuu afuray nebiga wa amara annaasa dadkiina wuxuu amray biliftaari inay afuraan uma intaa kadib waasala wuu xiriiriyey nebiga sayrahu socodkiisa xataa nasala ilaa uu degay bimari dahraan meesha lagu magacaabo cishaa'an wakhti cisho ah fa amara aljeysha ciidankii buu amray inay dabshitaan fa awqaduu waxay huriyeen 10,000 10,000 naarin oo dab ah kullu calaa xidatihi kasta si qaas oo dhan oo 10,000 gaaraya yuu yidhi nin walba dab gooni ha shito 10,000 oo dab baa la shiday qof kasta calaa xidatihi wajacala wuu yeelay cala alxaras waardiyihii wuxuu u dhiibay cala alxaras cumar ibn alkhadaab radia allaahu canhu habeenkaa cumar baa waardiye loo dhiibay wakharaja abuu sufyaan abuu sufyaankii caadiga waa kana waa soo baxay bacdamuu maka madax u yahay wuxuu rabaa inuu bal eego bacdamaa heshiisna ay ka baxeen nebi moxamedna hadal fiican uu ka soo waayey inuu bal fiirfiiriyo wixii yimid wakharaja abuu sufyaan abuu sufyaanna wuu soo baxay khaa'ifan asagoo baqaayo yataraqabu sugaaya wixii imaan lahaa walaa yaclamu shay-an waxna aan ogayn wamacahu waxaa la socda xakiim ibni xisaan wa budayl ibni warqaa labadaa nin baa la socotay falammaa markii ra'aa uu arkay abaa sufyaan anniiraana dababkii qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arkin kallaylata caaboo kale niiraanan dab qatun weligay kanoo kale ah walaa caskaran iyo ciidan qaala budayl baa yidhi haadihi khusaaca war waa reer khusaaca qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi khusaacatu khusaaca aqallu way ka yar tahay wa adallu wayna ka hoosaysaa way ka liidataa min an takuuna haadihi saan inuu ahaado niiraanaha dabkeeda iyo wa caskaraha ciidankeeda makana reer khusaaca ah oo saan u badan maya buu yidhi
abu sufyaan oo bayna yaday rasuulillaahi rasuulka hortiisa taagan sala allahu calayh wasalam. wa kaana alcabaas cabaas wuxuu ahaa radia allaahu canhu calaa baklati rasuulillaahi rasuulka baqashiisii. cabaas markii la soo celiyey cabaas mar allaala markii la soo celiyey rasuulka faraskiisii baa loo dhiibay calaa baklati rasuulillaahi yatajawalu asagoo ku wareegaya. falammaa samica markuu maqlay assawta codkii nimankii hadlaayey carafuu aqoonsaday inuu abuu sufyaan yahay. faqaala wuxuu yidhi abaa xandala ma abaa xandala ninkani abaa xandala miya waa abuu sufyaan. faqaala wuxuu yidhi abalfadl adigu ma abalfadli ba ilaasa markii haa dhihi maayo waa is ilaalina. faqaala wuxuu dhahay nacam haa abalfadli baan ahay. qaala wuxuu yidhi maalak maxaa haysaa wal ii waranba. fidaaka abii wa ummii hooyaday io aabbay baan kugu furanaaye. qaala wuxuu yidhi ee ninkii cabaas ahaa haadaa rasuuluullaahi ka rasuulkii ilaahay waaye. fi nnaasi dadka ayuu ku dhex sugan yahay. waa sabaaxa quraysh way hoogtay wallaahi. qaala wuxuu yidhi fama alxiilatu cadhaay abuu sufyaan maxaa lagu badbaadi karaa. fidaaka abii wa ummii hooyaday io aabbay baan kugu furanaaye. qaala abalfadli wuxuu yidhi wallaahi lain dafira bika hadduu kaa guulaysta maanta muxamed layadribanna wuu dhufanayaa cunuqaka qoortuu kaa goynayaa. ee farkib soo kor fii cajazi haadihi albaqla baqashaan gadaasheeda soo kor buu yidhi. waayo ballan ma jirto, ballanta idinkaa ka baxay, weli kaafir baa tahay. haddii laguu badbaadiyo faraskan soo gal xataa intii aatiya bika aan kula kaafiyo rasuula allahi sal alla alay wax kaloo sameeye male. fara uu la soo maray bucumar ibn alkhadaab sida asaga waardiye ahee ra'aahu baqashi. faqaala cumar wuxuu dhahay abuu sufyaan caduw allah cadowgii ilaahay. alla kan waa abuu sufyaan waa cadowgii ilaahay. alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska leh. alladii allihii amkana minka iikaa suuro geliyey bikayri caqdin walaa cahdin ballan la'aan iyo caqdi la'aan. ayasoosan caqdi iyo cahdi labadaba jirin allihii ikaa keeno ikaa soo magangeliyey xaggaaga yaa mahad iska leh. washtadda wuu orday cumar ilaa rasuuliillaahi rasuulkii xaggiisa wuu cararay sal alla alay wasalam. wuxuu rabaa inuu dhay rasuulka ilaahayow ninkii abuu sufyaana gacanta ku haya oo gacan iigu jire ma dilaa. warakaba alcabaas cabaas wuu fahmay asagana wuxuu la degdegay albaklata baqashii fasabaqa ilaa rasuuliillaahi rasuulka alluu u hormaray sal alla alayh wasalam. uma kabacdi dakhala wuu ta'adanu ka sufyaan abaa sufyaan qoortiisa inuu gooyo. faqaala cabaas wuxuu yidhi yaan la goyn rasuulkii allo innii ajartu anaa magangeliyey anaa ammaangeliyey. wa aqada bira'si rasuuliillaahi rasuulka madaxiisuu soo qabtay cabaas. wa qaala wuxuu yidhi laa yunaajiihi alleyla caawa la koodi maayo nebiga axadun qofna duunii ani sukadayda. oo wuxuu isleeyahay haddaad nebiga shib ka dhahdo ama inta hadal loo sheego asiyo dhibkiisa la xasuusiyo hala dilo uu dhahaa qofaan ani ahayn oo nebiga caawa la sheekaysanaya maba jiruu yidhi. wa agtara cumar waa badiyey inuu dha rasuulkii allow ii fasax kan qoorta aan ka gooye. wa rasuuluullaahi saakitun rasuulka allana uu aamusan yahay. uma intaa kadib qaala ilcabaas cabaas baa wuxuu ku yidhi idhab bihi la tag ilaa beytika gurigaaga gey meeshaad degan tahay. faidaa asbaxta haddaad waabarid subxii geli ee adiga hay mar allaala markaad waabariisatana ii keen. falammaa jaa'a bihi markuu la yimid fi subxi subxi qaala rasuululah wuxuu dhahay wayxaka hooge yaa abaa sufyaan alam ya'ni miyayna soo dhowaanin laka adiga an taclama inaad ogaato an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye inuusan alla kala jirin. xilligaa miyaan la gaarin. qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi maa axlamaka maxaa kaa dulqaad badan, wa akramaka kaa karaamo badan, wa awsalaka kaa qaraaba xiriirin badan. low kaana macahu ilaahay micigiisa hadduu ilaahun alla ahaan lahaa hayruhu aan alla ahayn la aghnii cannii shay-an bacdu la aghnii wuu deeqi lahaa cannii xaggayga shay-an waxbuu ii tari lahaa bacdu weli.
gadaal buu wax iiga tari lahaa, wax uu ii anfacay ma jiro, waatanoo gacantiina aan ku jiro, marka waan qirayaa waay. qaala wayxaka hooga yaa abaa sufyaan, aysan kuu dhowaanin laka adiga an taclama inaad ogaato annii rasuula allaahi, inaan rasuulkii ilaahay ahay. taa weli ma gaarin miya? qaala wuxuu dhahay amaa haadihi midaani, oo inaad rasuul tahay, fa inna fi nafsi nafsadda xata al'aan ilaa wakhtigan minhaa shay-un, shay baa kaga sugan. ma qirsani weli wuu ula jeedaa, gacantuu ku jiraa, arrintaasi weli nafteeda kuma degana. faqaala alcabaas, cabaasaa ku qeliyo wuxuu yidhi aslim, warhu islaam, qabla an tadriba intaan la dhufan cunuqaka qoortaada. waa is adkaynaya weli miya? war iska islaam buu yidhi. facalayhi dawdat alxaqi. faqaala cabaas wuxuu dhaha yaa rasuula allah, rasuulka ilaahayow, ina abaa sufyaan waa yuxibu alfakhr, ammaan. qaala rasuulku wuxuu dhahay nacam waa yahay, man dakala qofkii gala daara abi sufyaan fahuwa aamin, aamin waaye. waman aglaqa qofkii xirta calayhi korkiisa baabuhu albaabkiisoon dagaalaminna fahuwa aamin, asaguna waa aamin. waman dakhala almasjid alxaraam, kacbada qofkii galay masjid alxaraam fahuwa aamin, asaguna waa aamin. rasuulku wuxuu ku sii gelayaa maka almukarama, laakiin meesha inuu joogto. wabillahi towfiiq, wallahu subxaanaه wa tacaala aclam.